Bismillahi Rahmaani Rahiim. Waxaan bilaabeynaa koorso cusub oo channelka ku cusub oo SketchUp Pro 2017 ah. Waxaan ka cudur daaranaynaa koorsadii hore ee aan bilaabnay AutoCAD-ka cilad farsamo awgeed. Licensing AutoCAD-kii ayaa naga dhacay. So iyadana waxaana qabsatay cilad kale sidaa daraadeed ma crack-gii xitaa inaan isku daynaa rabnay iyada naftigeeda shirkadda waa noo ogolaan weysay waa noo crack-garaysin waa wax walbaan sameynay intaasaan ku maqnayn. laakiin ardayda doonayso inay AutoCAD 2013 helaan insha Allah linkigan ayaan description-ka ugu reebayaa. Sidoo kale software-kan aan bilaabeyno way soo degsan karaan. Ardayda AutoCAD-ka doonayso sidoo kale haddii ay soo degsadaan trial oo 30 days ay ka heli karaan iyagana halkaas ayay kala soo degi karaan. Sidoo kale SketchUp Pro-ga description-ka ayaan ugu reebayaa linkiga laga helo iyadana halkaas ayay kala soo degi doonaan insha Allah. Arday badan ayaa iga soo codsatay waana u cudur daartay AutoCAD-kii laakiin insha Allah within this month dhamaadka bishan ama bisha July inaan dib u helno ayaan software-keena isku dayaynaa waana bilaabi doonaa insha Allah. SketchUp Pro-ga waa mid ka mid ah software-rada ugu casrisan ee haddeertaan oo la saadaalinayo inuu adduunyada qabsan doono 5 sano ay soo socoto. SketchUp Pro waxaa iska leh shirkadda Google iska leh. So marka insha Allah waxaan isku dayi doonaa inaan cashiro badan ka sameyno hadba intaan ka gaarayno laakiin waxaan sameyn doonaa ilaa iyo 20 ama ilaa iyo 15 cashir insha Allah oo full project aad iyo aad u fudud yahay sida u malaynaysa ma ahan. Marka kusoo dhawaad SketchUp Pro marka soo kiciso wuxuuna kuu soo baxaya sidan ayaa kuu soo baxaya insha Allah linki ayaa ka arki doontaa. Then waxaad dooranaysaa choose template meesha ay ku qoran tahay. Then wuxuu kuu soo saarayaa feet, inch, meter, feet, sidoo kale millimeter, meter. So anaga waxaan ku shaqeynaynaa wadankeena loo isticmaalaa meterka ayaa la isticmaalaa. So meterka ayaa dhag siinaysaa halkaas hoose ayaa start using SketchUp ku lehaysaa. Wuu shaqeynayaa waa kana programkeena hadda waa uu soo kacayaa. Programka markuu soo kaco wuxuu yeelanayaa shaashad sidan oo kale. So marka aniga idin daahinaynin programka ayaan u guda galaynaa. Ninka meesha taagan saas highlight-ka u saar click ku sii macnaha korkiisa tag click ku sii then computer-ka meesha delete ku qorata iska tir. Then waxaa imaataa for example toolbar ayaan iga maqan hadduu igu jiro toolbar-kan waxaad tegaysaa view ayaa tegaysaa toolbar then waxaa imaanaysaa meeshan hoose haddaan uu ii saaran yahay waxaa laga yaabaa idinkiina oo nii saarneen oo saas uu nii ahay for example markaa soo kicisaan saan uu nii ahay meeshan ujeedin meeshan sare idinma wax iima saarno. So saan ardayda u yahay waxaan ka codsanayaa inay sidan sameeyaan toolbar-ka tag then soo kici toolbar-ka markaad aad ku dhufato waxaa helaysaa toolbar view meeshaas click check saar oo jeedin soo ma waa kaas aan muuqdo then wuu soo korayo. Saa markuu tago oo shaashadaada ay saan ku tahay oo kuu soo kaco oo kuu saxmo macnaha oo kuu soo koro toolbar-ka view waxaa leedahay meel kale ma tegaysid ha ku wareerin programkan ha isdhihin wuu adag yahay aad iyo aad simple ayuu fududahay. Waxaa halkaas mujeedaa ku dhufanaysaa oo zoom extension waa macnaha shaashada ila ekeysi ah halkaas ayaa ku dhufanaysaa. Then waxaad tegaysaa meeshaas waa aragtay isometric waaye top view waaye front view waaye right view waaye back view waaye left view. Ardayda sawirka way garanayaan drawing-ka ayaa lagu qaataa ugu horeeyo semesterka koowaad. So marka top view-ga ayaan ku dhufanayaa. Top view markaan ku dhufto waa kaasaa saas ayaa ii soo baxayso top view markaan ku dhufto waxaan toos u guda galaynaa balaankeenii insha Allah. Waxaan soo qaadanaynaa rectangle meesha shapes-ka ay ku qoran tahay dhowr shape ayaa laga heli karaa circle wax walba laga heli karaa hadda rectangle ayaa saaran rectangle-ka ayaa soo qaadanaa halkaas ayaa saaraa rectangle-ka inta mala aadaay intana mala aadaay intana ma ku shaqeynaya macnaha laakiin halkaas ayaa ku shaqeynaya. Meeshan hoose fiiri meeshan hoose ayaa tirada ku qoran tahay rectangle marka xagga aadid tirada qor tirada caadi u qor 15,15 that means waxaan sameynaynaa balaan ah 15 meter into 15 meter then enter enter markaa dhahdo waxaa ujeediin haddeertaan inay shaashadeeda wax aysan wada dhamaystirmaynin. So marka meel kale taawan zoom extension taawo ama shaashada ila ekeysi oo ujeediin waxaa soo baxaya balaankii oo si wanaagsan aad u wada arkaysaan
oo si macnaha kuu usoo dhaweysma dan marka waxaa sameynaysaa waxaa soo qaadanaysaa cabirka saacadaas kili ku sii inta kasoo qaado inta kasoo qaado hadda waxaan sameynaynaa external wallki ayaan sameynaynaa external wallka waxaa soomaali la isticmaalaa 0.4 ayaa la isticmaalaa inter dheh ujeedin externalka dan kor kasoo qaado iyadana 0.4 kale click dheh inter dheh then meeshaan kasoo qaad iyadana waxaad soo qaadaysaa 0.4 okay intana waxaan sameynaa simly 0.4 hoosta waa ujeedin meeshaas hoose kusoo qormaysaa 0.4 meeshaas hoose waa ujeedin ay kusoo qormaysaa soo marka hadda markaan 0.4 ka waxaan dhan aan soo qaatay waxaan soo qaadanayaa rectangle-keyga ayaan soo qaadanaya halkaas ayaan kasoo qabanaya inta ayaan ku qabanaya so hadda marka waxaan sameynaynaa waa ujeedin marka aan wax sameynayno waxaa soo raacay kuwaan shaashadan grades ayaa lahaa so waxaad tegaysaa toolbarkaas editka delete grades ayaa leedahay nadiif waa ujeedin muuska ardaydan waxaan kula tali lahaa inay macnaha external mouse ay soo gataan aysan soo qaadan muuska aysan ku shaqeynin muuska laptopka oo wato waxaa loo baahan yahay muus oo external ah oo banaanka ka ah ama USB waxa rabo ha noqdo muuskaas soo gata then waa ku shaqey kartaa insha allah laakiin muus la-aan aan external ahayn macquul ma noqon karto soo marka balankeena ayaan guda galaynaa waxaan soo qaadanaynaa tapekeeni waxaan sameynaynaa qol oo 4 mitir ilaa 4 mitir soo marka saan waxaan u dhaqaaqaynaa 4 mitir okay intana dhahnay intana maxaa kasoo dhaqaaqaynaa 4 mitir kale kasoo dhaqaaqaynaa then waxaan sameynaynaa exterior wallka aan qaadanayna waxaa qaadanaa deetay 0.4 mitir ayaan qaaday laakiin interior wallkan waxaa waaye oo derbiga dhexe guriga dhexdiisa ah 0.2 ayaa qaadanaysaa wax kale ma sameynaysin 0.2 internet sidoo kale intana waxaan sameynaynaa 0.2 ayaan qaadanaynaa okay wax kale ma sameynayno waxaan sameynaynaa wax soo qaadanaynaa rectangle-keeni markaa soo qaadano sidii ayaa sameynaysaa okay internet sidoo kale rectangle keliya ma lagu shaqeeyo waxaa soo qaadan kartaa laba option oo kuu furan linekaasna waa soo qaadan kartaa lineka hadda ku sameynaynaa fiiri inkastoo rectangle-ka ku fududo ma jeeda dhag xaggaadan dhag ku sii intana dhag ku sii okay maxaan sameynaynaa marka si loo tirtiro gradeskan waa taqaaniin sida hore le waaye edit tag delete grades leh oo jeedin hadda waxaa noo samaysnay qol ah 4 mitir shaashada la ekeysi marka waxaan doonaynaa inaan tirtirno meeshan oo aan isku furno soo marka waa kana wuxuu leeyahay razor tool soo qaado razor toolkii then oo jeeda shaashada la ekeysi ku dhaweey waa zoomka oo waxaan isticmaalaya muuska then shaashada la ekeysi then hadda waxaan helay oo qol 4 mitir ilaa 4 mitir saddex dhinac then haddana waxaan sameynaynaa waxaan soo qaadanaynaa qol kale ayaan sameynaynaa oo dhankan ayaan ka sameynaynaa soo ujeedaan 4 mitir asina soo qaada then waxaan sameynaynaa interior qolkii oo gudaha ahay intan waxaan kasoo qaadaynaa qol kale oo ah 4 mitir macnaha qol isla qolkii waa derbi dhankan then waxaan soo qaadaynaa 0.2 mitir ayaan isticmaalaynaa 0.2 oo interiorkii ahaa soo hadda waa ujeedaan maxaan sameynaynaa marka waxaan sameynaynaa waxaan idhahay laba option ayaan ii furan programkan aad iyo aad ayuu u fududyahay one project oo dhammaystiran ayaan ka sameyn doonaa insha allah laba option ayaan ii furan waxaan ii furan inaad soo qaadataan rectangle-ka ama inaad soo qaadataan lineskaas soo marka rectangle-ka noo soo qaad rectangle-ka maadaama shaqo fudud yahay marka lacag ka soo qaadadana then haddaa lacala inta ku dhufato haddaa meelo qaldan iskaaga dhufato oo kale maxaa dhahaya control z okay dhammaantiin waad garanaysaan soo marka rectangle-ka soo qaado meeshaas aad dhufanay soo maxaa noo yaala hadda waad garanaysaan inaan tirtirno gradeskii aad iyo aad soo marka intaan gradeska aanan tirtirin soo ama tirtirba
radiuska delete guidance iska dheh then maxaan soo qaadanaynaa linekan soo qaado waxaan sameynaynaa linekan ayaa waxaan ku xiraynaa linekaas then marka la soo qaado linekan waxaan ku xiray haddana linekaas okay ujeedin then waxaan sameynaynaa eraser toolkii soo qaado ku dhaweey okay sidaas u tirtir sidoo kale intana ka tir haddii wax qaladaada dareemto shaashadda leekiisa leedahay xaggana waxaan ku dhahay top view ku dhahay sidaadii ay kugu soo noqonaya ujeeda okay intana tir okay shaashadda leekiisa so hadda waxaan sameynay waxaa noo dhiman halkan ayaa noo dhiman oo ilownay top view wada aga raal noqon so top view dheh hadda waxaan sameynay waxaa noo diyaarsan 3 qol sababta aan u sameynayo ku sheegaya sababta aan macnaha u tirtirayo haddii aan macnaha saan dheh ni tusayo macnaha hadhow markaan 3D gaarno sorry ujeedin macnaha qolalkii sideeda ay u soo qaadmayaan macnaha sababta hadhow hadduu kala xirxiran yahay haddii uu kala xirxiran yahay lama soo qaadi karo soo la ajrigeeda ujeedin qolalka saas ayuu qaad that's why aan macnaha u sameynayna inay kala furfurnaan soo noo soo qaad toolkeeni inta qol kale ayaan ka sameynaynaa oo ah sidoo kale cabirka 4 mitir hadda waxaan soo qaadanaynaa qol 4 mitir geeskan kalena waxaan kasoo qaadanaynaa gees kalena 4 mitir ayaan kasoo dhaqaaqaynaa so wax kale ma sameynayna inta waxaan ka dhaqaaqaynaa 0.2 interior wallka intana waxaan ka dhaqaaqaynaa gudahaas ayuu dhaqaaqaynaa 0.2 xogaa meel buuq badan ayaa wax ku duubayaa lahaada then qol kale ayaa raacaya oo asna ah 4 mitir kale inta kasii qaad 4 mitir dheh waxaa raacisaa interior wallkii oo 0.2 ah okay marka kale nooma dhibno soo noo soo qaad marka rectangle-keeni noo soo qaad inta kasoo qaado rectangle-ka okay marka la soo qaad haddana ku qabo okay rectangle soo qaad haddana xag ku xir marka la soo qaad haddana xag ku xir soo iga tirtir marka geediskan iga tirtir okay marka waxaan meeshaan waxaan raacinaynaa jiko yar ayaan raacinaynaa oo ah 2 mitir 3 mitir marka 2 times 3 mitir ah soo marka hadda waxaan dhaqaaqaynaa noo soo qaad cabirkeeni inta 2 mitir dhaqaaq waxaa raacisaa interiorkii raaci oo 0.2 ah then intana waxaa kasoo dhaqaaqdaa 3 mitir then interiorkii raaci oo ah 0.2 then waxaa soo qaadataa triangle-ka rectangle-kaagii soo qaado sida u soo xir sidii la u sameeyo macnaha waxaan wax aad iyo aad u fudud maaha software-kan waa software aad iyo aad easy way hadda waxaan qaadanaynaa cashirkeenii koowaad hadda waxaan sameynay 1 qol 2 qol 3 qol 4 qol iyo jiko meeshan waxaan ku sameynaynaa 3 musqul oo is xigta ayaan ku sameynaynaa soo marka sameey cabirkeena noo soo qaad inta wax kasoo qaadaa 2 mitir musqulaha waa 2 mitir aan qaadanaynaa 0.2 isticmaal then haddana dhaqaaq oo 2 mitir kale 0.2 sorry aanan dhaqaaqin okay hadda 0.2 dhaqaaq haddana waxaan isticmaalaynaa 2 mitir kale dhaqaaq then 0.2 oo interior-ka
inta waxaan kasoo dhaqaaqaynaa musqulaha 3 mitir inta waxaan kasoo dhaqaaqaynaa musqulaha 3 mitir kasoo dhaqaaq 3 mitir waxaa raacaysaa 0.2 so marka hadda waxaan sameynaynaa rectangle ayaan soo qaadanaynaa musqulihii ayaan xirxiraynaa then waxaan tirtiraynaa guideline-kii very simple waaye aad iyo aad ayuu u fududahay so waxaa ka shakiyey rectangle-kuna soo qaad aadigiisana iyada hadday ku aadaya okay waxaa samaysaan intana kasoo qaad okay qaladaan sameeyey intaan kasoo qaaday inaan keeno okay this is right kan ayaan saxan mar kale soo qaad haddana rectangle-kii inta dhig haddana soo qaad inta keen you see wuu saxan yahay aad u fudud yahay qalad hadaa gashay xataa sida loo laabto aad u fudud hadan soo qaad haddana mar kale halkaas dhig waxaan sameynaynaa waa isku furaynaa sidee la iskugu furi jiray waa taqaanin waxba razor toolkii soo qabo inta iska fur jidis iskugu furma okay kana ku fur okay sidoo kale inta ku fur intuu ka xiran yahay fur okay shaashada la sin u tag haddana inta fur outcast-ka waa ku aragteen trimkii weeye wax kale maaha meeshan meel kale oo ka xiran yahay waa kana intuu ka xiran yahay hadhow markaa qaadaysid oo 3D-ga isticmaalaysid hadduusan oo isku xiran yahay ma wada qaadi kartid macnaha dhibaato ayaad kala kulmaysaa okay fur meelahaas dhan fur meelahaas dhan waa furna hadda wax noo dhiman dambe malaha so marka waxaan sameynaynaa hal mar naga tirtir lineskeeni then waa ujeediin macnaha waxaan sameynay hadda waxaan sameynaynaa balaankeenii oo 2D-ya insha allah cashirka xigo waxaan ku sameyn doonaa waxaan gelin doonaa albaabadii waxaan gelin doonaa daaqadihii sidoo kale hadda qofka injineerka markii naqshadan horgeeyo ma yaqaano macnaha cabirkan qolkan meeqa waaye cabirkan qolkan meeqa waaye kan meeqa waaye macnaha ilaa uu ka arko so marka waxaan sameyn doonaa mid walba cabirkiisa ayaan ku qori doonaa textkiga ayaan ku qori doonaa next lessonka casharka soo socdo waa kan bedroomkii master bedkii musqushii jikadii waxaas inuu injineerka macnaha kala garta ayaa loo baahan yahay so marka cashirka xiga intaan ka gaarayno insha allah nala socdo dhammaan ardayda doonaysa sidoo kale rabta inay kusoo biirto group whatsapp ayaan sameeyey oo kusoo wada kusoo biiri doonaan wixii su-aalaha halkaas ay iga soo weydiin doonaan lambarkeyga halkan ayaan soo dhigayaa cashirka xigo insha allah isbuuciina waxaa soo geli doonaa 2 cashir ama 3 cashir la socod wanaagsan